waxay u qabatay Somaliland qof wax u qabtay ma jiro Somaliland waxaan u qabtay madaxweynayaasha jooga uma qabanin Somaliland waxaan u arkaa part of dadka ummadda Soomaaliyeed ee weligood la isla raadinayay inay tahay aabahay awowayaashay anigaygana u soo halgamay waxaan u soo halgamnay Soomaalinimo iyo in sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed ku noolaato wax la kala saaraya meeshan ma yaalaan hadday diyaar u yihiin dadkii oo kala bar halka yimaadeen in la wada hadlo oo wax la wada qabsado ogow ra'iisul wasaaraha soo maray waxa soo maray foreign minister waxa adduunka ka socdaan ogahay wax badan baa jira therefore foosiya waaga waxay fikiraysay waxay hadda fikiraysay kulli waxa soo dhan meel dhig midnimo aan aaminsanahay intaas aad u soo socotaa mabda'aygu waa midnimo Soomaaliyeed isu timaado markaana waan aaminsanaa haddana waan aaminsanay weligayna waan aaminsan daacad ka noqdaan wada hadalka wax kasta ku heshiiyaan waa waxa dambe laakiin bal marka hore si niyada in loo dadka lugooyada laga daayo oo inta la isar fadhiisto si dhaba looga hadlo waxa dhacay qaladaadka dhacay waxyaalaha dib u dhigaya mar walba in la wada hadlo in maaragtay si aan maaragtay waxba turxaan la'aan oo wanaagsan shax loo dhigo la yiraahdo maaragtay qof walba wuxuu rabo u sheegto saasaa ugu fiican wixii murka dhaqanka furfura inagu waxaan leenahay odayaal dhaqan aad xirfadahooda leh oo shuruucdooda leh oo xeer baa lagu kala baxaa marka mar haddii dagaal iyo qori lagu heshiin waaye oo isfahamsiya kolba dal inta loo cararo dabadeed lagu soo heshiin waaye muddo dheer waxaan la waday waxa fiican in geed loo goglo halka ay dhowr bilood fadhiyaan la isu cawdo la isku cabaado la kala gar sheegto akhirka wuxuun baa lagu heshiinayaa wuxuun baa markaa ka soo baxaya xildhibaanadiina ama siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland inta badan waxay tiraahdaa yaan wada hadallada iyaga lagu soo darin marka la wada hadlayo dadka ka soo qayb galay dhinacan koonfurta ka imanaya aragtidaas oo kale saad u arkaysaan in la idinka reebo mar walba idinka taa waan ku raacsanaa anu ma raacsanin in xildhibaano Somaliland ka soo jeeda oo halka Somaliland ku fadhiya inay wada hadalka xagga ka soo jeestaan in la isu daayaa fiican koonfur iyo waqooyi annaga waxaan nahay dadka midnimada u jooga dhexdaasan taagannahay laakiin in la wada hadlo oo dad serious wada hadlaan oo waliba odayaal marka hore la isu diro oo la kala bogto wixii ay ku soo heshiiyaan legal marka la binding la oo maaragtay xeer dad yaqaan xeerka iyo looyare iyo loo diro marka wixii la kala saxeexdo lagu heshiiyo taasay ku fiican tahay laakiin sidaan ay waxay marba diyaarad la sii saaran yahay hal maalinna la sii socdo hal maalin la soo socdo maalin galinkeeda la wada hadlayo la oranayo ana muqaddas baanahay adna muqaddas baanahay dan uma aha Soomaalida dhalinyarada ummadda mustaqbalka waxa dan uma waxaan waa in la saani looga hadlaa xildhibaanadiina xaggan ka soo jeeda adiga shakhsiyan waliba maxaad maanta oran kartaa Somaliland waan ku matalayo ama dadka deegaankaasi waan taraa intaan halkan joogay maadaama aad muddo xoogaa halkan imika jirtay Somaliland si dhaban anagu masalaa laakiin Somaliland dadka jooga qaarna waa ogi qaarna ma oga hadda qabiilka halkan ku soo dhacay ee dhibaataysan anagu noo yimaada ka baasaboorka raadinaya anagu noo yimaada ka shaqo doonaya anagu noo yimaada ka scholarship raadinaya anagu noo yimaada ka visa doonaya anagu yaanu masalaa marka ma iyaga mas'id kale Somaliland waa masalaa anaga dawladdu nama soo dirin mana masala dawlad laakiin shacabka iyo ummadaas dhibaataysan waa masalaa marka anagu dadkaas aanu masalaa meesha u joogno laakiin maadaama aydan tagi karahayn deegaanadii aad matalayseen oo ay adag tahay inaad tagtaan xildhibaan intuu halkan ka tagay yiri Somaliland baan matalayo Somaliland tagana aanu jirinba xildhibaanada kale ee idila midka ee baarlamaanka ee deegaanada kale ee Soomaaliya ka soo jeedana ay deegaanadooda tagi karaan maxaa dareentaan markaas oo kale idinkoo maaragtay deegaankiina intay kareen wax foolxun ma jeclin laakiin waxaan rajaynaynaa in Ilaahay garansiiyo dawladda Somaliland in Ilaahay garansiiyo waxa ka maqan talooyin horena waan uga sheegay shirkii Djibouti waxyaalo badan bayna weydiin karaan oo wax naga weydiin karaan oo waxba iyagu kala soconin dadka halkan ku dhibaataysan ee ogeen anagu inaan mucaawinano sii dhoofinayno maalin walba waxaan filayaa inay dareen u yeeshaan inaanu halkan dad ka maqan anagu ku hayno oo fara badan oo waliba aad u soo batay imika aad iyo aad u soo batay waa si wanaagsan xildhibaan waxaa jirtay shir hobyo ka dhacay oo aad ka soo dhex muuqatay shirka dad badan su'aal bay iska weydiiyeen adoo maaragtay shirka deegaankaasi dhex fadhiya bal qaabkaad uga qayb gashay iyo shirkaas iyo saad ku matalay arruntayda ayaa reer hobyo ah maadaama laygu casumayna
waaba karaamo iyo xurmo iyo sharaf waa tegey waan ka dhex muuqday waan ka qudbadeeyey waana laygu si wanaagsan baa laygu soo dhaweeyey marka ma la odhan karaa laba meelood baad kala matashaayo matalaadaadu ma sahlana gabar Soomaaliyeed oo dhan waa laba meelood gabar Soomaaliyeed waa ambassador meel walba ay masasho kuwan u ahay ayayda ah maxay ahayd toy sanaag bare aniga Hargeysa iyo Somaliland odagayga iyo caruurtayduna waa hubiyo marka gabadha Soomaaliyeed kasta waa caynka